asalaamu calaykum kusoo dhowo guuleed podcast mar labaad sidaad ogtihiin waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii aadka u ballaadhnaa ee ahaa horumarinta shaqsi ahaaneed taasoo aan ugu talagalay bulshadeeda in uu maaragtay qofku naftiisa qeybo badan uu ka horumariyo hadday noqoto kalsoonida, hadday noqoto hadalka, hadday noqoto xidhiidhka bulshadiisa uu la leeyahay iyo waxyaabo fara badan oo nidhi barnaamijka horumarinta shaqsi ahaaneed waa mowduuc aad iyo aad u ballaadhan oo laakiin aan ka dhigi doono cutubyo yaryar oo gaagaaban. insha allah haddii aadan soo daawan qeybtan ku horeysay soo daawan ku odhan lahaa maanta waxaan isla eegaynaa horumarinta hadalka. isaguna waa cutub yar oo kooban laakiin waxaan isku daya inta ugu muhiimsan in aan ka soo qaado marka la socod wanaagsan. hadalku saad ogtihiinba waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee nolosheenna, haddii ay tahay hadal jeedin ama diyaarinta ama soo bandhigid marka aad rabto inaad wax soo bandhigto ama inaad dadkaba la sheekaysato la macaamisho. waa wax aad iyo aad u muhiima, laakiin sidee ayaad u horumarin kartaa xirfadaha hadalka ama aad u samayn kartaa isbeddel si aad u noqoto qof hadal yaqaana oo wanaagsan, oo haddii ay timaado ganacsiga iyo haddii ay timaado maxaan ku dhahay nolosha kale caadiga ku horumara. waayo qofka si fiican hadal yaqaanka u ah wuxuu ku guulaystaa qeybo badan oo noloshiisa oo wuxuu noqdaa qof horumara. marka barnaamijkanna waa sababta aan u idhi horumarinta hadalka oo loo baahan yahay dhammaanteen in aan ka shaqayno. sida aad ula macaamisho qofka ama aad ula hadasho waxay saameyn weyn ku yeelataa horumarkaaga, weliba marka la joogo maxaan ku dhahay galbeedka iyo dunida koowaad. sida aad dadka ula macaamisho xataa dunida saddexaad marka la eego dalkii qofka aftahaankii uu xadaaradda leh wuu ka fiican yahay qofka kale ee aamusan ama iskuusa een hadli karayn. marka waxaa laga yaabaa inaan dedejinayo barnaamijka. qeybta commentiga igula wadaag wixii fikirkaaga. waxaan u dedejinaya barnaamijkana waxay tahay waxaan joognaa waqti bulshadii ay ku adag tahay inay wax dhegaystaan, iyagoo ay arrimahani yihiin arrimo muhiima oo qofka munaafacaad u ah oo qeybo badan oo noloshiisa ka dhisaya, laakiin haddana waxaa lagu qasbanaaday contentigii in lasoo wada gaagaabiyo. marka horaan usii soconaynaa. waxaa jira dad si dabiiciya hadal yaqaan u ah oo ku dhashay, iyo dad waxaa jira iska kobciya oo barta marba marka dambeysa oo noqdo hadhowna dad hadal yaqaana oo wax iibin kara, wax soo jeedin kara, dadkana kasban kara. xataa siyaasadda marka ay timaado waxaad u baahantahay dabcan in aad hadal yaqaan noqotid oo hadal kar aad noqotid ood soo bandhigi kartid, u sheegi kartid bulshadaada ama dadka wakhtiga aad la joogto sida fikirkaagu uu noqonayo ama waxa aad damacsan tahay. marka si guud horumarinta hadalku waa wax muhiima oon laga maarmi karin. marka inuu qof walba horumariyo oo praxis gareeyo oo dadkana maaragtay la macaamilkana wanaajiyo way wanaagsan tahay. sidee markaa loo horumariya hadalka waxaa lagu horumariyaa 5 qodob oon isla eegi doono. 5taa qodob haddii qofku sameeyo oo maaragtay ku dhaqaaqo, waxaa suurtagal noqonaysa markaa in uu noqdo qofkaasi qof ku horumara hadalka, qeybta hadalka, si fiicanna u noqdo qof hadal yaqaan la odhan karo. 5ta qodob waxa weeyaan qodobka koowaad waxaa loo baahanya marka ugu horeysa inaad noqoto hadal yaqaan ama ay noqotid qof hadalkiisu horumarsan yahay. waa inaad dhegeysiga dadka kale aad maxaan ku dhahay suurto gelisaa. waayo haddii aadan dhegeysan waxaad noqonaysaa qof aan fahmin
wixii uu sheegayey oo iska hadlaya. Marka steebka koowaad khuburadu waxay yidhaaheen hadal yaqaan fiican inaad noqoto haddaad rabto waa inaad dhegaysataa dadka kale. baro inaad si fiican oo firfircoon u dhegaysatid dadka kale, kadibna uga jawaabtid baahiyaha iyo rayiga dadka kale ee wakhtiga aad ka wada hadlaysaan. So marka hore steebka koowaad waxa weeyaan in aad dhegaysato ood fahanto, kadibna aad uga jawaabto qofkii rayigiisii iyo wixii markaa aad ka wada hadlayseen. So taasoo markaa inoo ogolaanaysa xataa markaad dhegaysanaysid qofkaas inaad u muujinayso ixtiraam iyo dabcan qadarin wanaagsan ood qofka tusayso, si aad maaragtay arrimaha dhegaysigana ugu wanaagsanaato. dhegaysiga laftigiisu waa qodob isaguna culus oo dadka qaar ay ku adag tahay, laakiin waxaa la badiyaa inaad dhegaysato podcastiyada si aad u praxis garaysa inaad wax dhegaysan karto. dad waxaa jira markay wax kuu sheegeen waqti badan u baahda inay wax kuu sharaxeen. waa inaad dhegaysataa xataa adiga waxay kuu tahay praxis in aad samirka badiso ood qofka dhegaysato. So halkan haddii aad soo gaadhay dabcan anigaba si fiican baad ii dhegaysanaysaa. horaan uga sii soconayna insha allah. markaa sidoo kale waxaad dhegaysataa khudbadaha culummadu ay soo jeedinayaan wakhtiga dheer qaata iyo bodcastiyada iyo waxyaabo fara badan oo kaa saacidi kara inaad wax dhegaysato. So qodobka labaad wuxuu noqon doonaa in aad tababar samayso ama aad praxis samayso. sida xirfadaha kale xataa hadalku wuxuu u baahan yahay praxis, in aad ku alamitayso ama aad dadka kula hadasho ood wixii ku celceliso ood kobciso ayuu u baahan yahay. marka qodobka labaad waxa weeyaan si aad u horumariso hadalkaaga waa inaad praxis fara badan aad samaysaa, taasoo kaa saacidaysa inaad ka gudubto cabsida haddii ay jirto oo tahay qof cabsooda oon hadal yaqaan ahayn. inaad praxis garayso oo dadka la hadasho ood isfurfurto iyaad markaa ay kuugu suurta galaysaa inaad noqoto hadal yaqaan. So qodobkaasi qodobka labaad buu ahaa. hadda waxaan maraynaa qodobka saddexaad. waa in aad barato ama aad u fiirsato luuqadda jidhkaaga marka aad hadlayso. So luuqadda jidhkuna isaguna waa topic aad u ballaaran. waxaa loo baahanya inaad ilaaliso luuqadaada jidhka marka aad hadlayso. tusaale, taasoo ka turjumaysa inaad tahay qof daciifa iyo inaad tahay qof qawiye ah. luuqadda jidhkaagu marka aad hadlayso waa inay ku dheehan tahay hadal yaqaan marka aad tahay ereyadaada iyo sida aad wax u soo bandhigayso, inaad forforarsato iyo inaad maaragtay enta aad badiso. waxay keenaysaa laftigeedu in ay bulshadu ama dadku kuu arki waa inaad tahay ama inaadan ahayn qof hadal yaqaana. marka luuqadda jidhkaagana waa inaad ilaalisaa si aad u noqoto qof aad u horumariyey hadalka ama qeybta communicationka. So luuqadda jidhkaaga waxay inta badanna kaa caawin kartaa in aad kasbato waqti xaadirkaas dadkii aad wax u sheegaysay. haddii aad tahay qof furfuran markaad wax sharaxayso, gacmahaagu furan yihiin oo tahay qof si fiican wixii u soo bandhigaya, dhibco wanaagsan baad ku helaysaa ama ku suurta galaya waqtigaas hawsha aad gacanta ku haysay. kolba waxay ku xidhantahay situationka, laakiin guud ahaanba waxaan eegaynaa horumarinta hadalka, sida ugu wanaagsan eed hadalka u horumarin karto. qodobka afaraad waxa weeyaan in aad isticmaasho marka ay timaado hadalka, isticmaal hadal cad oo kooban. waa inaad isticmaashaa ama aad barataa hadal kooban oo cad oo la fahmi karo, si aad u soo jeediso ama aad u soo bandhigto wixii aad rabtay. taasina waa ereyo gaagaaban oo cadcad inaad isticmaasho. tusaale, adoon raadin
adoo raadin in aad faahfaahin ama sharaxaad dheer aana galin. Waa inaad soo gaagaabisaa hadallada ood u adeegsataa erayo kookooban oo cadcad. So waa qodobka 4 taasoo markaa qofka ka saacidi karaysa in uu message-kiisii waqti yaroo kooban ku soo gudbiyo. waa qodobka 4 eed ku horumarin karto hadalka communication-kaaga. So qodobka 5 waxa weeyaan in aad naftaada ku kalsoonaato. Markay hadal timaado waxa meesha soo gasha mar walba kalsoonida, waayo kalsoonidu door muhiima oo aad u weyn ayay ka ciyaartaa marka ay timaado shakhsiyadda qofka. So marka hadalku iyo kalsooniduna inta badan waa laba eray, maxaan ku dhahaa laba cutub oo isku xigay. Hadda cutubkii kan ka horeeyay kalsoonidan ka soo hadalay, halkana hadda waxaan maraynaa hadalkii. Marka mar walbana waxa laga maarmaana in aad kalsooni ku dirtid haddii ay noqoto hadalka, waayo wixii waxaan odhan karaa waa package, waa set isku xidhan oo loo wada baahan inaad hal mar soo wada saartid. Tusaale oo kale, hadalka inaad taqaanid, inaad isku kalsoonaatid, iyo inaad luuqadaada jidhka hal mar soo wada saari kartid si aad u soo saarto shakhsiyad buuxda oo dhammaystiran. So qodobka 5 ee aan ku soo gabagabayn doono wuxuu noqonayaa inaad naftaada ku kalsoonaato. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee si fiican loogu hadlo ama loo baahan yahay in la adeegsado waa kalsoonidaba. Haddii aad isku kalsoonaato, hadal badan uma baahanaysid inaad sheegto. Waxaad noqonaysaa qof kalsooni fara badan ay ka muuqato, marka hadallo badan uma baahanaysid. Marka kalsoonidu waa muhiim in aad naftaada ku kalsoonaato. Haddii aadan naftaada ku kalsoonaan, sidoo kale waxaa suurto galaysa in aad qancin weydo qofka ama bulshada aad wax u soo bandhigayso waqtigaas, taasoo ku horseedaysa dabcan khasaare aad u weyn. Markay timaado arrimaha horumarinta shakhsi ahaaneed, khasaare aad u weyn bay tahay qofku haddii uuna ahayn qof isku kalsoon, raba inuu wax iibiyo, wax dadka u soo bandhigo, uu rabo inuu barnaamij qof ka iibiyo oo maxaan ku idhahay hirgeliyo, ku tabaabusheeyo, uma suurto galayso hadduuna qofkaasi kalsooni muujin. Guud ahaan, horumarinta xirfadda hadalku waxay kaa caawin kartaa inaad ku guulaysato dhinacyo badan oo nolosha iyo inaad gaadho yoolalkaaga, taasoo dhammaanteenba aan u baahannahay ay tahay wax aad iyo aad u muhiima. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay sida wanaagsan eed ila soo daadiisay barnaamijkan. Aniguna aad baan u dadejiyey. Waxaan rajaynayaa waqtigan inaad ka faa'iidaysatay, ay ku ahayd waqti aad wax ku baran karto. Qodobka ku xiga barnaamijkeena aadka u ballaaran horumarinta shakhsiyaaneed wuxuu noqon doonaa fahanka iyo dareenka bulshada. Qodobkaasina waa mawduuc aad u ballaaran. Feedbacka iyo tala ah qaybta commentiga igula wadaag. sida TikTok-tan waxaad ka heli kartaa fiidiyoyo gaaban Guuleed Podcast. Waxaa ku qoran Guuleed Podcast, sidoo kale loogada ayaad ku garan kartaa. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.